iyo sida uu u sharfay ee uu karaamay waa muhim maxaa yeelay shaki wuxuusan ku jirin dumarku haddii ay hagaagaan ajyaal iyo xadaaraad iyo ummaday dhisan haddii ay halaabaanna ummado dhan iyo xadaaraad bay dumiyaan way sabab u noqdaan dumidooda وانا معناها نبينا صلى الله عليه وسلم وتلماميه markuu leeyahay xadiidka Abi Sa'id al-Khudri في صحيح مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الدنيا ده اسكتشر أبو النبي صلى الله عليه وسلم دمر كان اسكتشر فتنة دي أقوه الرئيسي الرئيب بني إسرائيل waxay ka bilaabatay dumarka markii reer bani Israa'iil baabiinay fitnadooda iyo imtixaankooda dumar buu ka bilowday kadalika xadiidka Usama iyo Sa'id ibn Zayd Bukhari Muslim ay soo saareen nabiga sallallahu alayhi wasallam ma taraktu ba'di fi an-nas fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa' gadaashay kama tagin buu nabiga sallallahu alayhi wasallam fitno ragga uga daran dumarka uga dhib badan oo uga darar badan iyo fasaad ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu tilmaamayaa marka xadiista iyo nusuustaasi tilmaamaysaa dumarku goorta ay dariiqa ka leexdaan oo fasaadaan oo la ihmaaliyo oo dariiqa ka baxaan ummadda waxay keeni karaan dumideeda ummado horay ugu dumay haday hagaagaan oo dumarku ay dumar hagaagsan noqdaanna waxay dhisi karaan waxaan rag u dhisi karin jiil iyo ummad iyo xadaaraad iyo waxaan caadi ahayn bay sabab u noqon karaan oo dhisi karaan taasi waxay ku tusaysaa in mudnaan la siiyo waxa barnaamijka ku saabsan dumarka khaasatan xilliga hadda la joogo oo shaqo laga dhigtay in alla intii ilaahay xarigiisa ka furatay ayaa shaqo waxay ka dhigatay dumarka wax la yiraahdo xuquuqda dumarka wax la yiraahdo dumarka xoreyntooda wax la yiraahdo kan yaani waxa way ujeedaduna ma aha iyaga in loo danaynayo waxa la doonayaa in la khadeeco oo la siro oo kadibna ujeedada lagu gaaro ma aha macnuhu dumar masaalixdood baa laga shaqeynaya sidaas daraadeed ahmiyada iyo mudnaanta ay dumarku leeyihiin guud ahaan ayaa cadawgeenu dareemay markaas waxay ka shaqeeyeen markay muslimiinta ku soo duuleen oo casrigan hadda casrigii tagay iyo kan iyo duulaankii muslimiinta lagu burburinayay meelaha ugu khatarsan iyo furimaha ugu khatarsan ee laga soo galay dumarka ka mid ah waxay xoog saareen inay dumarka muhiimadoodii seejiyaan guryahana ka saaraan maryahana ka dhigaan duurkana u bixiyaan markii taas ay sameeyaanna taqriiban waxay og yihiin inay damaanayaan inuu gurigu dumayo ilmihiina dayacmayaan meesha ummad baa ku luntay haddii gurigii duumo ilmihiina dayacmaan mujtamaciina waa dayacmay iridaasa marka laga soo galay oo waxay dhihi jireen ragii mustacmiriintii ama muxtalliintii cala al-asah waxay dhihi jireen ka'sun wa ghaniya taf'alani fi tahtim al-ummah al-muhammadiyah akthar mimma yaf'aluhu 1000 midfa' fa'aghriquha fi hubb al-maddati wash-shahawat ay dhihi jireen koob khamra iyo haweenay ghaniyad ah oo heesta ayaa ummadda Muhammad burburinteeda iyo baabi'inteeda waxay ku sameyn karaan wax uusan kun madfac ayna ku sameyn karin kun gantaal iyo kun madfac waxayna sameyn karin ayaa waxa ku sameyn kara ummadda Muhammad bay dhahaan koob khamra ah iyo gabadh banaanka u soo baxday oo qaawan oo muxuu ahay heesays
sidaas daraadeed baa waxay yidhaahdeen waxaa tiimbisaan dumarka maadada jacaylkeeda iyo shahawaadka. dumarka shahawaadka hala jeclaysiiyo, hala soo saaro, yani meeshii ay ku barakaysnaan iyo khayrkoodii ha laga soo saaro. waxaa kaloo ka mid ahaa yani maasuuniyada nimanka la yidhahdo aqwaashooda: yajibu calayna an naksaba almar'a fa aya yawmin maddat ilayna yadaha fuzna bilxaraam bay dheheen watabadada jeyshu almuntasiriina liddiin. waa inaan ku dadaalay dheheen inaan dumarka kasbanno, dumarku inay xaggeenna soo maraan. maxaa yeelay maalin kasta oo haweentu gacanteeda inoo soo taagto, ay xishoodka jabiso, oy asturka jabiso, oy dhowrsoonaanta jabiso, oy gacanta inoo soo daagto iskeen siiso, maalinkaas ayaynu ku guulaysanay ujeedadeennii. wadaadadii diinta watayna ciidankoodii maalinkaasuu jabay. wax alla wixii diin u hiilinayay maalinkaa waa jabay ciidankoodii. maxay ku jabeen? calashaani waxa wey haweentii baa laga kasbaday. ayagoo fikirkaa ka duulaya iyo mabda'aas baa caalamulislaami waxaa loo keenay in dumarkii la saaro, marada laga dhigo, xijaabka laga dhigo, xishoodka laga saaro, akhlaaqda laga saaro, bitaali kadibna loo isticmaalo sidii faas lagu burburiyo ummadda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda. maadaama marka ay ahmiyadda leedahay, way mudan tahay in laga hadlo mawduucu oo la bayaaniyo. khaasatan gabadha ama haweenta muslimadda waxyaalaha aada loogu duufsaday waxaa ka mid a in la yidhaahdo islaamku wuu ku dulmiyey, islaamku xorriyaddu kaa qaaday, islaamku waa ku xumeeyey, islaamku waa ku yaso, wuu ku xaqiray. gabadhii in iyadii ilaaheediiba laysku diraba, ilaaheedii iyada laysku diro, iyadoo rabbigeed tabaaraka wa tacaala uu karaameeyey oo sharfay, haddana in lagu diro diinteedii, lagu diro akhlaaqdeedii, lagu diro. waryaa eedda dhigay dumarkiiyo ilaahay dhex taala? rag baa dhigay. soomaalida waxay yidhahdaan muxuu ahaayey waraabe iyo caruur eedda dhex taala rag baa dhigay baa la yidhahdaa. eed baa dhex taala. ilmaha yaryarka markay yihiin waraabo mayna arkin, guriga joogaan, laakiin sidii uun loogu cabsiinahay, war ruwaaga, war waraabaha, war iska jir loo lahaa, ilmihii cuqdad buu u qaaday waraabihii. soo ma? marka cuqdadan yaa dhigay? ayagu ismayna arkine rag baa dhigay. soo ma? marka gabadhii muslimadda ahayd walilasaf iyadoon diinteedii ka warhaynin, wax badan ogeyn, baa waxaa lagu diray rabbigeedna waa lagu diray, diinteediina waa lagu diray. waxaa la yidhi diintanaaba balaayo o dhan kuule. markaasaa waxay bilowday inay diintii ka baxdo, ay tidhahdo waa xoroobahayaan. na xaggeedu xoroobi? xaggeedu xoroobi? ilaahay bay ka xoroobi oo addoommay u xoroobi. xaqiiqadu waa taa. rabbigaa tabaaraka wa tacaala cubuudiyadiisa intaad ka baxdo, addoommaha ku addoonsadeen baa xorriyad loo tusay. dumarkii marka waa la siray oo muxuu ahay waa laga caqli badiyey, oo in badan oo ka mida waa laga lugmeersaday, oo dhibaan caadi ahayn baa ku dhacay. in yaroo ilaahay u naxariistay mooyo tabaaraka wa tacaala. marka waxay u baahan tahay mawduucaas in aad yani laysu dultaago. islaamku muxuu horta gabadha muslimadda u qabtay? taasi waxay caddaan kartaa markaan wax yar dib ugu noqonno. islaamka ka hor dumarku maxay ahaan jireen? xadaaraadkii hore, ummadihii hore, dumarka maxay ka rumaysnaayeen? markii lagu laabto xadaaraadkii ka horreeyey ama ummadihii mujtamacaadkii islaamka ka horreeyey, kulligood waxay ka siman yihiin in haweenayda la yaso, in la xaqiro, in la dulmiyo bay isku waafaqsanaayeen. igriiqoo kale maalan waxay dhihi jireen waa qashin shaydaan ka soo jeeda dhihi jireen dumarku. waa sida alaabta suuqa la geystoo la kala gatoo kaley ahaan jireen. ruumaankaoo kale hadda reer yurubkani ka soo jeedaan, shicaarkoodu wuxuu ahaan jiray oy ka doodi jireen laysa lilmar'ati ruux bay dhihi jireen. haweenaydu waa uun jidh mooye ruuxba male, ruuxba ma jirta, waa uun jidhkaas maayo. iyadana waxaa loogu talagalay inuu raggu ku shaqaystaan. siin oo kale ama jaynaha waxay dhihi jireen oy rumaysnaan jireen oo dumarkula dhaqmi jireen ninku inuu xaaskiisa iibsan karo suuqa intuu geysto, sida ceesaan suuqa intuu geysto baayacaya waa laga iibsanaa.
sidoo kale ninkeedu markuu dhinto xoolaha la dhaxlayay ku jirtay waa la dhaxli jiray sidoo kale wuxuu xaq u lahaa iyadoo oo nool inuu aaso iyadoo nool intuu xabaal u qodo inuu godgeliyo xaq buu lahaa waa nidaamkii China wa furus oo kale Iiraaniyiinta sidoo kale dib aan yareyn dumarka waxay ka rumaysnaayeen in si alla sidii la doono ninku ugu talin karo hadduu doono u dili karo sidoo kale muxuu ahaayay Israa'iiliyiinta ama Yahuudo kale waxay ictibaarin jireen oo kutubtooda ku qoran inay dumarku lacnad yihiin inay dumarku ay lacnad yihiin maxaa yeelay aadam lumidiisi iyo geedkii uu cunay dumarkaas xawa sawayd bade waa khuraafo xawa sawaay saas daradeed dumarku soodo waa lacnad tayib markay caadadu ku dhacdana sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ayna la fadhiisan jirin mana ayna taaban jirin waxna lama cuni jirin wasakh la iska fogeeyay ka dhigi jirin carabta markaad u timaado haweenku wax ma dhaxli jirin bal iyaga la dhaxli jiray ya ayuha alladina aamanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha wardumarka ha dhaxlina leey say u dhaxli jireen haweenadu markuu ninkeedu dhinto wiilkiisa ayaa intuu yimaado ama qaraabadiisa nin kamid ah ayuu haweentu ka dhintay buu mara saaranaya maruu ku tuuraya maradu ku tuurto macna wax way ana iskala waay agteeda lagama soo dhawaan karo haday xoolo leedahay ama uu guursan ilaan aabahood haweentu ka dhintay bay guursan jireen quraanku waa ka diiday ama hadii kale to intuu nin walba u diido oo meesha ay ku guumeysawdo ayuu marka xoolaheeda markay dhimato qaadan jiray sidii adoon uu leeyahay oo kale tuu ka dhigan jiray marka dhaxal lama siin jirin ragga bas wax dhaxli jiray laakiin dumarka wax lama siin bal iyaga la dhaxli jiray raggu waxay ugu tasarrufi jireen waa jaahiliyadii carabta dumarka waxay ugu tasarrufi jireen markay doonaan bay furi jireen markay doonaanna way soo celin jireen dalqada aan dhamaanaynin waligii yaalihi marna uu siideyn marna uu soo celin xaasna ma aha xaas la'aanna ma aha nin la'aanna ma aha ninna ma haysato mar wuu sii wadaa waad furantahay haddana waad soo ceshay waad furantahay haddana waad soo ceshay wax ka dhamaanaya ma bahaba shariicadu tilmaaya waa khaldantihiin laba goor baad furi kartaa mar saddexaad hadaad furto bas waa noqosho ma jirto sooma caadadoodu waxay ahayd inay dalqada aan xad lahayn waxa kamid ah markii ninku ka dhinto kale in ay intay buul cidla u dhisaan oo meesha geliyaan ayna ka soo bixin sanad kaamil ah oo qabays loo diido oo nadaafad loo diido oo meesha ay ku jirto oo isku urto sanad markuu u dhamaado ayay intay soo baxdo ay muxuu ahaay wuxuu noolaha kamid ah xayawaanaadka iyo ismarmarin jirtay xayawaan noola ah hadda ismariso waaba dhimanayaaba waa jaahiliyadii carabta waxa kamid ah mesela gabdhahay nacbaan jireen inay gabadh u dhalato waa nacbaan jireen maxaa yeelay waxay leeyihiin jireen ceeb bay noo soo jiid quraanku waa ka sheegayo midkood inay gabadh u dhalato waa kaanaya markaas wuxuu leeyahay talow ma ceeb baad isaga dul qaadataa mise carradaad ka hoos marisaa waad iska aastaa waxan markaas iyadoo nool soo qabtaan bay gabadha yarta ah ee ay dhaleen bay aasi jireen wa'dul banaat waa mid quraanku aad uga hadlay war maxaad gabadhaada yarta u aasi balaayadana ceeb bay soo wadataa ama inta la islaayaa la qabsan doona ama meelahaas ay xumaan intay la timaaday garac iyo balaay dhali walaay bay ictiqaad xun bay ka rumaysnaayeen gabdhaha marka way nacbaayeen bal haweeneyda xaaska gabdhaha dhasha gabdhaha ay dhasho lafteeda loo nici jiray waa gabdha dhalay baa la dhigi jiray balaaya ku dhacday gabdhoon bay daadinaysa Soomaalida lafteedu cudurka way qabtaa imtixaanka jira Sooma war maxaa gabdhaha maxaad u diideen gabdhihii waa la nacay waata quraanku aad uga hadlay oo qanciyay oo dadkii kala hadlay oo gabdhaha karaameeyay oo xaqooda u dooday يعني waxa weeyaan haweeneydii baa waxa loo nacaya calashaani waxa weey gabdhaha dhashay qissa dariifa yani haweeney kamida muxuu ahay dumarkaas oo lala qabay
ayaa malaha waxay ku curatay gabadh xaas kalena waa lala qabaa ninkeeda Abu Hamza la dhihi jiray markay gabadh ku curatay uu isaga tagay tii kale u go'ay markaasay gabadheedii yaryar iyadoo boodbootinaysa ciyaarsiinaysa ba waxoogaa geeraarkan yay akhrinaysa waxay dhihi jirtay waxay lahayd maali abi Hamza la ya'tina yadhallu fil bayt alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين تالله ما ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض لزارعين يلبث ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا وقبل لقيتك حاس لقيتك وقبل لقولنا عيوة وعيلاده ورو حمزة محاكو عيوانين كذي أو نوغو إيمان لاي قريقا نوحيقا أمبو تشوغا واتيك لقريقا دي قريقا نوحيقا أمبو تشوغا أننا نقوم بصور ليحنا ما وحو عريسانيها إنا نقبل بالله هذا ونوها يستيه دنبيكو ما قبل إنا ندليوا إلهي بان كل أرتي بيتيري تاسي قعنت ندكو ما جرتو ما أنا قعن كويس إنا ويل دلي إنا قبل دلي مثل إلهي باكينيت waxay tiri bal iska wadhaafe annagu dhul baan nahay bay tiri haddaan dumarkii nahay dhul baanu nahay waana nala beertaa dhul baan nahay beertaana lagu ritaa waxaana dhexdanada ku nagaado oo yaani minkanaga ku jira wixii kolba la gashado wixii nala siiyo baanan qaadanaa marka maxaan eedan leenahay oo nalooga tagay maxay tahay sooma gabadhiyo calaacalayso waxoogaa buraanburayso tixda qaadayso gabadheedii boodbootinayso maqlay maalintii dambe markaasuu isla yaabay wuxuu sameeyay xumaanteedu ku baraarugay markaasuu gabadhii u soo noqday sooma dumarkiiba xataa loo nacay علشان قبض بدش ورقبضنا يعني علمي حديث كا وحيالها أفائدية وحكم إذا عجائبتها سيدا إذا وقبضها داليتان كودا يويلش داليتان كودا دمر كشقكم له لبك يددكو لوضب وحكي ما درجة هذا قبضه بطانو دشانا هذا قبضها دلان بدن دالي صوبة وحقيقة واي يعني وحويان وحي دادان منيدة الرقة أيا وحي تهي اكس اي واي واي صوبة اكس اي واي واللبك يددك منيدة الرقة حنبارسن لكن دمرك يجا أكون تودا وأون وي أقبشاؤون وحي سوق قاري أقبشا تصاسمه مرك اللبك نينكو كإيمان ددقونا نينكو كإيمانية حاد دور كويس ستان مرك هاد قبلها قلنا عادي سو خلط معه wax ilaahay bixiyay marka koowaad loo manac marka labaadna sababta ayagu ma ayla gabadhu tay ka cabanaysaa iyada marka nacaybka ay dumarka nacbaayeen oo gabdhaha ay nacbaayeen jahiliyadii carabta ayaa halka gaarsiisnay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kama fi sahih al-Bukhari wuxuu leeyahay kunna fil jahiliyati la na'uddu an-nisaa shay'an islaamka koor dumarka waxa maana ku tirin jirin wax qiimo la meeyna nalahay فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا مركو قرآن كي سود دقو إلهي قرآن كوشيغي حقوقنا أشيغي باوحان أغاني بوري إني بحق نقول إيهين أما إسلام ككهر دمر كإني وحيهين بمانا أوهي سنين بوري تاسي مركا وحوي الدمر محي أها يعني إسلام ككهر إسلام كسيبو كردقاي واحد يوغو ساسا مركو أويمت إسلام كسيبو أولا رقم إسلام كوحو كب اللابي مبدأ اللي يلاهدو النساء شقائق الرجال إنما النساء شقائق الرجال وحديث النبي صلوات ربي السلام عليه حديث عائشة أحمد أبو داود الترمذي مناجة يسوس صارين يعني وحوي ضمركو وأن رقت شيء حوضي واي ضمركو ورقت شيء حوضي وقسيمة الرجل وقيبتي لبات نوشة ابن آدم كا رجو قيب واحد دمر كنا وقيبتي لبعض بعنا وحويان وحي حقوقه يوحي واجبات الرجو أي لهايين يوحي كرامة أبي لي مركي لقى ريبو مسائل شقار كود أول صور ريبو مركا وقسيمة الرجل حقوق بيلاده هاي واجبات بيلاده هاي شرف بيلاده هاي كرامة بيلاده هاي يعني وحوي إسلام كواشف wuxuu islaamku meesha ka saaray
dhammaan qaababkii dumarka loo dulminayo dhan buu meesha ka saaray wuu xadeeyey qaarna bilkulliyo meesha ka saaray yani wax weeyaan dumarkii dhaxal baa la siiyey aan dhinac loo dhaafi karin dumarkii la iska dhaxli jiray waxaa la yidhaha dhaxlina dumarka xor waaye haweentu haddii laga dhinto iyadaa xor ah ninkay doontay guursan adiga ma xaniban kartid waa meesha soomaalida lafteedu dhaqankaa waxbay ka haysataa dhaqankaa jaahili buu ahaa laakiin waxbaan ka haysanaa waxa weeyaan dumarka markii laga dhinto in la yidhaahdo waa lagu dumaalayaa soo ma wabitaali xorriyad ma lihid ninka walaalkii adeerkii qaraabadiisa unbaa ku guursan karta xataa hadduu nin xun yahay waa inaad aqbasho leanna xoolaha nagaga kaa baxay sooma waan ku iibsanay saas daraaddeed annagaa kule war saas ma ah haweentu xorriyad bay u leedahay haddii laga dhinto caalamka ninkay rabto inay ka guursato dumaasha hadday ku qanacdo inay qaraabada ninka ka guursato ahlan wasahlan hadday ku qanci weydo xaq uma lihid aada xanibtaan waa la diiday dumarkaa dhaxlina iyagii baa dhaxal la siiyey dalqadihii baa la xadeeyey gabdhihii ay aasi jireen baa qur-aanku aada uga dooday waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat nacaybkii gabdhaha laga hadlay ilaa allah tabaaraka wa tacaala uu yidhaahdo muxuu ahaayey xataa markuu ka hadlayay raggiyo caruurta ilaahay uu dadka siinayo noocyada ay yihiin allah tabaaraka wa tacaala wuxuu hormariyey dumarka dumarku kul uu hormariyey yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukraanan wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima allah cidduu doono wuxuu siiyaa gabdho laga bilaabay cidduu rabana wuxuu siiyaa wiilal cidduu rabana wuu isugu daraa cidduu rabana wuxuuba ka dhigaa ma dhalays aan dhalayn soo ma intaba alla bixi u fiirso iyagaa la hormariyo alla wuxuu yidhi cidduu rabo gabdhuu siiyaa wiilashii iyagaa sheegitaanka laga hormariyay marka allah tabaaraka wa tacaala waa karaameeyey wixii dulmi lagu hayo o dhan buu ka qaaday madaahirta iyo qaababka uu islaamku u karaameeyey muxuu ahaayey gabadha muslimadda ah ama haweenka u karaameeyey waxaa ka mid ah abuurista iyo dumarka jiritaankooda islaamku wuxuu ka dhigay nicmo weyn balaayo ma aha baasna ma aha sharna ma aha dararna ma aha bal waa nicmo aan laga maarmi karin waay nicmo aan laga maarmi karin waay allah tabaaraka wa tacaala waa ka inoo sheegay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay tabaaraka wa tacala waa ka xaasaska idiin abuuray si aada ugu xasishaan soo ma nicma waay ilahay in looga shukriya waajibta aaya min aayaati illahi wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada allah tabaaraka wa tacaala waa ka idin siiyey muxuu xaasaskana caruurta idinka siiyey iyo xafada khadam idin adeega oo caruurtay sii dhaleen ah marka dumarka jiritaankoodii abuuristooda allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay nicmo oo meeshaa waxaa la buriyey khuraafada dhahaysa dumarka abuuristoodu ama keenidoodu waa dhib war meehe waa nicmo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku galladaystay dadka ku galladaystay raggoo kale weeyaan baa le inama annisaau shaqaa'iqu rijaal waa raggoo kale hadday ragga keenidoodu ay darar tahayna dumarka keenidooduna waa darar hadday ragga keenidoodu nicmo tahayna dumarka keenidooduna waa nicmo inama annisaau shaqaa'iqu rijaal oo dee ragga yaaba dhalayba ya rag yaa dhalay dumar baa dhalay haddayna dumarku jiri lahayn kaa-inku basharku ma sii jireen basharku ma jiri karo dumar la-aan dumar wax tarma oo dhala oo ibni aadamka koriya oo barbaariya haddayna jiri ibni aadamku ma jiri karo nin keliyaoo soohana ah adduunkan ma wadi karo soo ma nin keliya adduunku kuma dhisnaan karo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala labadan jinsi abuuray iskana abuuray oo iyaga dhexdooda iska abuuray isuna abuuray marka ma kala maarmaan noloshiibaa ku wada taagan
shareecadu dumarka waxay ku karaamaysay takaaliifta shareecada inteeda badan rag iyo dumarka way ku sintay mabaadi'da iimaanka waajibaadka shareecada intooda badan way ka sintay wixii ragga laga rabo waa dumarkana laga rabaa wax yar baa lagu kala duway oo ay keenayso kala bedelnaanta abuurka ilaan isku mid ma ah isku awood ma ah isku qalbi ma ah isku caatifo ma ah kala bedelnaanta abuurku xikmadda rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu keenayaa axkaamta qaarkood inay ku kala bedelaadaan laakiin asalka axkaamta shareecada aqlabkeeda rag iyo dumarku waa isaga mid miaal baynu qaadanaynaa waa xadiidka umu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waxay tiri rasuulka waxaan ku yidhi yaa rasuul allah maa lanaa laa nudkaru fi lqur'aan kamaa yudkaru rijaal rasuulka ilaahay maxaa qur-aanka naloogu sheegi laay sida ragga loogu sheegayo haddaan dumarkiina waxay tiri falam yarucnii yowmaidin ilaa wa nidaa'uhu cala almimbar isla maalinkiiba waxaan ku baraarugay bay tiro kada igu noqday nebigoo mimbarka saaranoo dhawaaqaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay tiri wa ana asraxu shacari falafaftu shacari markaa aan dhawaaqa maqlayana timahaan shalnaysanayay bay tiri oon hagaajisanayay markaasaan intaan timihii duuduubtay oon iska laalaabay baan waxaan usoo kacay bay tiri muxuu ahaay qolkii masaajidka xaggiisa soo xigay markaasaan dhegta saaray bay tiri oon si aan u dhagaysto bal nebigu sal alla alay wasalam wuxuu sheegi doon markaasaa waxaan maqlay bay tiri nebigu sal alla alay wasalam yaa ayuha nnaas ina allaha yaquulu fii kitaabihi wardadow ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku yidhi sidan maxay tahay ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat waalqaanitiina waalqaanitaat waalsaadiqiina waalsaadiqaat waalsaabiriina waalsaabiraat waalkhaashiciina waalkhaashicaat waalmutasadiqiina waalmutasadiqaat waalsaa'imiina waalsaa'imaat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وفيرس صفة كستو رجع الله شيء دمر كين والله شيء رجع مسلمين تا يدمر كمسلمات كا رجع مؤمنين تا يدمر كمؤمنات كا رجع إلهي أطيع يدمر كأطيع ragga runta sheega iyo dumarka runta sheega ragga sabra iyo dumarka sabra ragga khushuuca iyo dumarka khushuuca ragga wax sadaqaysta iyo dumarka wax sadaqaysta ragga sooman iyo dumarka sooman ragga furuujtooda iyo xubnahooda taranka xifdiyay iyo dumarka xifdiyay ragga ilaahay aad u xusa iyo dumarka ilaahay aad u xusa ilaahay wuxuu u diyaariyay ajir weyn iyo janno u diyaariyay umu salama su-aasheediisoo lagama jawaabin maa lanaa laa nudkaru fi lqur'aan kamaa yudkaru rijaal maxaa qur-aanka naloogu sheegi laayahay warku waa dhammaaday bimacnaa wax weeyaan sifaadka ama caqiidaha noqoto axkaamta cibaadada akhlaaqda shareecadani rag iyo dumar baa loogu wada talagalay rag khaas kuma aha masaladaasi marka waa nooc karaamayn ah xaggii takliiftii waajibaadkii axkaamtii raggay kala mid tahay waa la karaameeyey waxaa lagu karaameeyey aakharo waxaa la yidhi haddaad haween tahayna waxaad shaqaysataad leedahay haddaad nin tahayna waxaad shaqaysataad leedahay ma jirto wax la yidhaahdo aakharo waxaad shaqaysatay haweenkana ajirka waa laga dhimi raggana waa loo dhammaystiri يعني جزاء يا أبالجودك آخر والله السمية نول بوحو لي من بابالك سقاضني سيد ربنا تبارك وتعالى ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا تمركي يرقي ولا قول حد haweenaydu haday nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi sallat almar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhuli aljannata min ayi abwab aljannati shi't haweentu haday shanteeda salaadood tukato bisheeda ramadaan ay soonto oo farjigeeda xifdido oo ninkeeda ateecdo maalinta qiyaamada waxa la dhihi iridaha jannada ka doonta ka gal
abaalgudku marka ma jirto wax waliba rag baa sadbursi la siinaya nin baad adigu tahayo salaada tukatay 100 goor baa lagu laban laabi adiguna haweenay baa tahayo salaada tukatay 10 goor baa lagu laban laabi ma jirto sooma inda Allah tabaaraka wa ta'ala dumar iyo rag abaalku waa isku mid walba wuxuu la yimid bulay ma jirto wax la yiraahdo midabta kor waxa kamida musaawaadka ilaahay wuxuu ku simay tabaaraka wa ta'ala sidoo kale yani almuwalaat wa tanasur isuhiilinta iyo xuquuqda ay leedahay hiilinta iyo isjacaylka iyo walaalnimada iyo isxiriirinta rag iyo dumarka waa ku simay isku mid buu ka dhigay walmu'minuuna walmu'minaatu ba'dhuhum awliyaa'u ba'd yani mu'miniinta ragga iyo kuwa dumarka waa dad walaalo isjacal waa dad isxiga waa dad isuhiiliya muwalaadka sida ninku xaq u leeyahay bay gabadha muslimadda xaq u leedahay dadina iyadu ka xaq badnayn macna wuxuu ka kor qaaday islaamku dumarka dulmigi lagu hayay hatta dumarka xorta iska badaayay dumarka adoomada ah liska sidii la doono laga sameyn jiray shariicadu meel adag bay istaajisay waxa la yiri ma dulmin kartaan ma garaaci kartaan ma dhibi kartaan misaal waxaynu u soo qaadanaynaa xadiidka Muawiyah ibn Hakam oo muxuu ahaa uu soo saaray Imam Muslim alayhi rahmatullah Muawiyah ibn Hakam wuxuu leeyahay as-Sulami kanat li jariyatun tar'a ghanaman li waxaan lahaan jiray buu gabadh adoon ah oo ariga ii raacda fi qibali ahad Uhud dhanka Uhud buurta Uhud xageeda ariga u raaci jirtay fa atla'tu hadha dhata yawmin maalin baan soo kormeeray buu waan soo maray iyadoo ariga la joogto fa idan adh-dhi'bu qad dhahaba bi shatin min ghanabiha markiiba yeeyba intay timid bay arigi neef kamida kala ka qaadatay arigi bay la joogtaa waa gabadh adoon ah arigiiba yeey timid oo neef bay la tagtay ka qaadatay wa ana rajulun min bani aadam buu asafu kama yasafun ni bani aadam ana hayo waan xanaaqay sidii dadku u xanaaqaan ha seba yeeydu kaaga qaadatay neef fasakaktuha buu sakatan baal darbaxan iska qaba yidhi gabadhi laana neefkiina xoolii inay dayacday yu taqriiban qiyaasta suuqaat markan gabadhi darbaaxay adoontayd baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam markaas waxa uu ya rasuulullah markaas wuxuu yiri yani fa'azzama dhalika alayya nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadhi aan darbaaxay adoonta ahay arrinkeedii waa igu weynay hawl culus baad gashay miyaa darbaaxday oo miyaa dishay waa igu adkeeyay markaas waxaan buu intaan isku naxaya rasuulullah afala a'tiquha rasuul ilaahay ma ban iska xoreeyo ma xoreeya hadaaban khaladka inta la galay ma xoreeya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam iitini biha iken la kale markaas aan u keenay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam gabadhii adoontii buu la hadlo ayna allah buu ku yiri ayna allah allah xagee jira markaas ay tiri fi samaa korbu jira bay tiri يعني waxyaalahan dhulka yaaliya asnaamtan ilaahu ma taqaan hal kamid ee kor jira kaasa ilaaha bayt man ana buu ku yiri anugu yaana markaas ay tiri rasuulullah rasuul ilaahi bayt riwaayad kale waxay sheegaya gabadhu mayna hadli aqoonine markii uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam alle aaway farta bay taagtay anugu yaanahay saasay tiri بمعنى الله كصوتر صديوه مركز النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه حريب النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنه ها maxaa keenay in la xoreeyo dulmiga uu darbaxada iyo xogaaga u geystay soo saasma hatta dumarkii adoomada ahaa ee lagu shaqeysan jiray ee la iska dili jiray ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam meesha istaajay iska dhaaf dumarkii xorta ay warkooda iska badaa iska daa inay muslimad tahay hatta dumarka gaalada ah ba shariicadu waxay diiday marka dagaal lagu jiro muslimiintu dagaalamayaan in dumarka la laayo ciidan Khalid uu watay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu arkay haweenay raggii la laayay dhexdooda taal oo meyd ah markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam Khalid gaarsiiyay dumarka hadilina dumarka halaynina اللهم إني
ciidanka soo raacdo dagaalka soo gasho meesheeda waa laakiin dumarka iyo caruurta iyo odayaasha iyo dadkaasi aan dagaalamin lama laayo xataa iyadoo gaal ah shariicada islaamku marka dumarka waxay ka qaaday dulmigii bay ka qaaday way sharaftay oo waxay ku sharaftay markay hooyo tahay haweentu islaamku waa sharfay markay gabarh tahayna wuu sharfay markay xaas tahayna wuu sharfay markay hooyo tahay wuu sharfayo Allah tabaaraka wa ta'ala xaqiisa xaqa ku xiga waa xaqa labada waalid soo saasma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحق الله وحليلي وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي عقدم به ولوالديك قرآن الكريم كحق الله حق لبدا والد باكو حيقا لبدا والد مركي تماد يمادان نكوده حق بدن هو يداك حق بدن ساس دلاتي دو حال ديه كرا حق الله waxaa ku xiga xaqa hooyada hooyo xaqeeda ku xiga macnaheena xadiidka nabiga tilmaamaya salawaatu rabbi wa salaam alayhi xadiis abu hurayra wuxuu yiri nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri ya rasuulallah man ahabbu an-nas man ahsanu ahaqqu an-nas bi husni sahabati dadka ruuxa ugu xaqnimo leh saaxiibnimadayda iyo hagaajintayda iyo wanaajintayda ruuxa ugu xaqli dadka waa kuma nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ummuka hooyada waxaa idhi buuri thumma man yaa ku xiga wuxuu yidhi ummuka hooyada waxaan idhi buuri thumma man yaa saddexeeya ummuka hooyada thumma man yaa afreeya abuuka buu nabigu sallallahu alayhi wasallam aabaha imise darajay ka weyn tahay yaa saddex bay ka horeysaa darajada afraadu markaa imaanaya yaa weligiin diin iyo mabda sidaa u karaameeyo hooyo miyaad haysaan ma jiro waxaa lagu yidhi boqorkii madaxweynihii dadka dhan u talinayay sheekhii professorkii mutacallimkii kii dhaqaalaha iyo maalka lahaa milyaneerka ahaa waxaa lagu yidhi hooyadaa baa kuu talisa yaa hooyadaa amarkeeda qaado janna haddaad rabtana lugteeda hoosteeda ka raadi soomaart hadday duqowdo oo daawdo warkeeda iska badaa haddaad u adeegi weydo ood u shaqayn weydo ood saxarada ka tari weydo ood kaadida ka tari weydo oo darka ka bedeli weydo oo aad intay nooshahay kasban weydo naar baad geli yaa boqorka hooyaa u taliso boqoradu ah sheekha hooyaa boqoradu ah milyaneerka hooyaa boqoradu ah yaa weligiin yaale xageed ku haysaan karaamaynta noocaas reer yurub iyo reer galbeed hooyo saama u karaameeya waa kuwan muxuu ahaayey muxuu xuquuqda haweenka iyo xoraynta dumarka iyo karaamaynta dumarka waatana lagu lugooye yaa mise habar ilmaheedii ka tageen oo ay weheshanaysa yaa maalinta dambana eygii uu guriga inta isaga baktido uu eygiiba hilibkeeda cuni wuxuu cunay intuu waaye hooyo wataa yurub iyo reer galbeed hooyo warkeedu wakaa islaamna hooyo halkaasuu dhigay ma siman yihiin marka mise waa isu dhow yaa wax isu dhow maaha maa bayna asamaa'i waalardi marka allah shareecadani way karaamaysay haweenta iyadoo hooyo ah way karaamaysay karaamo ayna ragga siinin bay siisay sooma qodobka labaad way karaamaysay markay haweentu tahay gabadh way sharaftay waa gabadh waa la dhalay aabaheed baa xilka la saaray waxaa la yidhi ma xumayn kartaan ma aasi kartaan ma karaahaysan kartaan ma dhibsan kartaan waa laga saaray dulmigii waa laga qaaday allah tabaaraka wa tacaala saan soo tilmaanay ee caruurta uu dadka siinayo ee nicmada ah
dumarkuba u hormariyay gabdhaha u hormariyay waxa la yiri oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum caruurtiina cadaaladu sameeye gabdhaha iyo wiilasha u kala eexanina inaad wiilashaadana wax siisood ku daldasho gabdhahana qadiso oo tiraado kuwan ma rag kale u xirageli doonaan xoolaha ayna igala tagin maya waxaad wiilka siiso gabadha sii ilaahay ka baqa oo caruurtiina cadaalad u sameeyo buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma la dulmin karo sidoo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay ahadiis fara badan gabdhaha korintooda iyo tarbiyayntooda iyo waxbaridooda iyo ilaalintooda ajirka laga helo wiilasha korintooda laga ma helo sida cinaayada gabdhaha uu siiyay shariicada ay siisay xadiidka Jaabir ibn Abdullah nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man kana lahu thalathu banatin yuwihinna wa yarhamuhunna wa yatakallafu lahunna wajabat lahu aljannatu albatta bu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxi saddex gabdhood leh oo saddexda gabdhood soo duma oo u naxariista oo u nuglaada oo kafaala qaada oo waxbara oo muxuu ahaay hagaajiya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam jannada u waajibtay si go'an oo shaki ku jirin waxay yiraahdeen ya rasuulallah fa in kanat ithnatayn haday labayhin ka waran saddex gabdhood baad sheegtay ninkii laba la ka waran oo korsada si fiican u koriyo waxbara nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam isaguna waa la mid labana waa la mid dadku marka waxay yiraahdeen waxaan islahayn hadaan midna weydiin lahayn hal gabadhana inuu nabigu jawaabta bixin lahaa laakiin waana weydiinin badeen ya hatta halka gabadh marka wax way gabdhuhu kariimaad waxaan wiilasha lagu helin baa lagu helaa diinteenu saasay tacliintii aqoontii islaaxintii ilaalintii baridii guri fiican geynteeda nin fiican u doorideeda hatta ayada laguma halayno lama dhihin ayadu uun hatashate si ayna meel xun uga dhicin aabaheed walaalkeed ayaa la yiri meel fiican guri fiican nin fiican idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa raali aad ka tihiin meel wanaagsan gabadha geeya guri wanaagsan geeya inta ka horeysana gacanta ku hayo koriya jannad ku galeysaan sooma markay gabadh tahayna islaamku waa sharfay waa karaameeyay waalidkeed buu qasbay waalidkeed buu amray si adag baa loo karaameeyay nabigu sallallahu alayhi wasallam gabdhaha aad buu u jeclaa sallallahu alayhi wasallam san caadi ahayn gabadhii ay gabadhiisu dhashay oo la dhihi jiray Umama bint Abi al-Aas Zainab baa dhashay gabadhii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu awoobu ah sallallahu alayhi wasallam suu jeclaan jiray gabadha yarta iyadoo yar ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu kor u hay markaasuu salaad dhan ku dhamaysto ku tukaday saxaabada tujiyay isagoo gabadhii kor u haya markuu rukuucayo uu dhigaa markuu sujuudayo uu dhigtaa markuu soo istaagayna kor buu soo qaataa halka isagoo ku hayo salaada ku dhamaystay nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadhiisa Fatima nabigu sallallahu alayhi wasallam dad buu ugu jeclaa Fatimatu bad'atun minni Fatima waa gabal iga mid ah nabigu sallallahu alayhi wasallam wixii xumaynaya waa xumaynaya sooma wixii xumaynaya waa xumaynaya wixii dhibayana waa dhibaya nabigu sallallahu alayhi wasallam marka gabdhaha waa karaameeyay diintu waa karaameysay dulligii bay ka qaaday dulmigii bay ka qaaday xumaantii iyo jaahiliyadii bay ka qaaday madarajo sarana waa geys hatta wiilasha meelan la geenin baa la geeyay waxa xaq loo siiyay markay guursanayso ninka ay guursanayso ee nolosha la wadaagay xaq waxa loo siiyay in lagu qasbi karin gabdhaha qasbina haday yar tahayna idan weydiiya haday weyn tahay oo muxuu ahaayay nin hore ay soo martayna amar weydiiya saas daraadeed baa nabiga waxa sallallahu alayhi wasallam intuu gabadh aabaheed guuriyay isagoo kala tashanin oo tala galinin ay nabiga u timi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khiyaar baad leedahay xor baad
ama aabaha yeel ama haddaad doonto waa diidi kartaa wax la yidhaahdo xoog qasab ku yeel ma jirto صح waalidku inuu tala ku yeesho oo amarkiisa ay ka dambayso waa loo baahan yahay laakiin cidda nolosha la wadaagaysa ay guursanayso inay xaq u yeelato doorashadiisa meeshaas wax badan baa inaga siinaga Sooma badan baa siinaga odayaasha iyo muxuu ahay waalidiinta iyo awliyaa umuurka iyo gabdhaha waa la qasbi kadibna markii la qasbo silic bay ku noolaan ilaa wixii muxuu ahay يعني waxa way qanaaco iyo rido mayna ku gelin guriga marka sharaacadu waa diiday waxa la leeyahay gabdhaha yani wax weeyaan tala galiya waxa uu islaamku karaamiyay sidoo kale haweentu markay xaas tahay hooyo karaamiyay gabadhna waa karaamiyay xaasna waa ku karaamiyay oo seebu ku karaamiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi haweenta saalixada ee zawjada ah wuxuu ka dhigay diintaadiiba niskeed baa laga dhigay حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحول من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني روحي إلهي أوصيه هويني وناكسن إلهي وحو أقو كالمي دينتي سن نسكت نسكك لإلهي هو بق هوفيس حاسكي ودينت هذا نسكت خاصة مركي تهي هويني وناكسن سعادة إيا الليبان النبي مركو الشيخ صلى الله عليه وسلم وحول الليبان توصدح المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء هويني وناكسن حاس وناكسن إيوه قولي واسع عريري كو أهين إيه قاديد هين أهو كو أقل صدح داسي والليبان تنولوش أبو نبي صلى الله عليه وسلم معه الرئية المرأة الصالحة إسلام كو دمرك مركي حاس تهيوو كرامي وقامت لقين رقا الضون صيدونان أي كيالان بل وحو كدغاي inay tahay ibn aadan xuquuqdiisa leh waajibaadna saaran yihiin ayada iyo ninka nidaam baa loo sameeyay xuquuq ka dhaxayso labadooda mid walba laga rabana waa jira xuquuq ninka laga rabo xaasku ku leedahayna waa jira xuquuq xaaska lagu leeyahay ninku ku leeyahayna waa jira بني آدم كراميسان baa laga dhigay rabbigan tabaaraka wa taala wuxuu yiri walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja waxay leeyihiin xuquuqda lagu leeyahay iyaga ee raggu ku leeyihiin mid lamid ay ragga ku leeyihiin iyaguna xuquuqda mid lamid ah bay ragga ku leeyihiin raggana hal darajay u la dheerihiin walirrijali alayhinna daraja maxay tahay darajadaasi waa qawaamadii waa mas'uuliyadii guriga waa صما تا iyada looma sinna de looma sinaan karaba ma dhici karto wax la yiraahdo guriga haweentuna waa amiirad adiguna amiir baad oo de markaas ma waxba soconay ya anta amiir wa ana amiir faman yasuuq alhimar ya marka socon ya talinayo taasi ma soconayso ibn aadan wax ka dhaxeeyaan walaw laba ruuxna ha noqotee waa in uu jiro nidaam iyo kala dambeyn uu jiro noloshaas ku socon kartaa marka taasi waxa keenaysa xikmadda keenaysa rabbigan tabaaraka wa taala suutuna laakiin xuquuqdii inta ay ragguleeyeen bay iyaguna leeyeen xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam fi hajjati alwadaa markuu dardaarmayay ummadda la hadlayay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ala wa inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaykum haqqan war dumarkiinu xaq bay idinku leeyihiin idinkuna xaq baad ku leedahay xuquuqda dumarkiina ilaaliya iyaguna xaqiinaha ilaaliya xuquuqdii baa sida loo sheegay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam استوصوا بالنساء خيرا وردمرك خير دردارما دمرك خير كل دقما وعاشروهن بالمعروف وناجيا دقنك الله دقميسان لبا الريمود بو النبي صلى الله عليه وسلم يري اسكا جيرا لبا الريمود aad uga taxadara oo daciif labada daciif ee tabarta daran waa agoonka iyo haweenta labadaas xuquuqdooda iska jira buu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ragaba akhyaarnimadoodaba qiyaas uga dhigay miisaanka lagu garto ninku inuu akhyaariye waa inuu reerkiisa akhyaar u yahay khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam ka idinku fiican waa ninka reerkiisa ugu fiican anuna waxaan ahay midka reerkiisa ugu fiican ayaan ana idinku fiican reeraha sooma markii umar uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ee rasuul ilaahay nabigu wuxuu reebay dumarka garaacina buu markaas guriyihii waxoogaa waxa ka dhacday dumarkii inay ragga ku dhiiradaan
عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذئرنا النساء على الرجال رجي دمرك waa ku dhiiradeen la garaacin bay maqleen hawshii qasantay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu fasaxay markuu fasaxay baa nabiga guriyihiisii waxaa yimid dumar fara badan oo dacwoonay oo ka dacwoolay ragoodii oo garaacay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dumarka garaacina ulaa'ika laysu bi khiyarikum bu nabigu sallallahu alayhi wasallam raga dumarka u gacan qaaday akhyaartiina ma aha bu nabigu sallallahu alayhi wasallam akhyaartiina ma aha marka waa ka dardaarmay waa ka hadlay isaga la dhaqmi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam marka kullu dalika waxay ku tusaysaa inuu islaamku hooyada karaameeyay oo gabadha karaameeyay oo xaaska karaameeyay oo xuquuq siiyay oo iltizaamaad siiyay oo waajibaad siiyay oo jid cad mariyay haddii aynan hooyo ahayn oy walaal tahay ayadana sidoo kale waa la karaameeyay haddaynan nin lahayn oy armalo tahay carmal tahay ayadana waa la karaameeyay oo nabigeenu heer wuxuu gaartay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi uu yiraahdo as-saa'i 'ala al-armalati wal-miskiin kal-mujahidi fi sabilillah ninka ka shaqaynaya miskiinka iyo haweenta aan ninka lahayn masaalixdooda ka shaqaynay oo u taagan wuxuu la mid yahay sidii ruux ilaahay jidkiisa ku jihaaday oo kale kaasuu la ajriya marka haweenimada yacna way sharfan tahay way karaamaysan tahay islaamku waa sharfay wuxuu ku sharfay wuxuu ilaaliyay akhlaaqdeeda wuxuu ilaaliyay diinteeda wuxuu ilaaliyay magaceeda sida markuu islaamku u sharfay ayaa walil asaf gabdhihii muslimaadka waxay garan waayeen karaamaynta iyo sharafka islaamku uu siiyay markaasay sharaf waxay ka raadiyeen dhaqamo kale iyo mabaadi kale walil asaf waxa looga murka waay dad ku talagalay inay dumarka ka ganacsadaan kuna ganacsadaan ayaa dumarkii maskaxda ka xaday maskaxda lagaga soo duulay maskaxda laga xaday markaas waxa lagu yiri islaamku waa idin dulmay mid baa baraarujin mudan dumarka hadii la dulmay oo mujtamacaadka muslimka maanta jiray qaar kamida dhexdooda lagu dulmay ma islaamka dulmay oo eedda iska leh mise mujtamacaadka dulmo oo eedda iska leh ya mujtamacaadka khaladka iska leh khaladkaasina wuxuu ka yimid ka fogaanshaha diinta laga fogaaday soo saasma hadii xuquuqdoodii la duusiyo la dulmiyay oo tabardarrada darteed loo dulmiyay ma aha wax islaamka ka yimid ee waa wax ka yimid islaamkii oo laga durkay eedda marka diintu male islaamkuna male allana male tabaaraka wa tacaala laakiin waxa iska leh mujtamaci ama cidii waxa samaysay gabadha muslimadda marka waa inay fahanto waa in loogu sheekaynin waa lagu dulmiyay oo waa lagu xaqiray oo waa lagu yasay karaama iyo sharaf oo dhan baa loo tusay xunta guriga in la joogo oo sharafkii gabadha muslimadda waxa loo tusay inay tahay nooc xanibnaan xabsi baad ku jirtaa baa leeyahay waqarna fi buyutikunna waxa la yiri gurigu waa xabsi na xabiska ka baxa waxageen aada na banaanka u soo baxo kaale shaqayso kaale malqacadaad wax ku cun lahayd raadso saxankii aad raashinka ku raadi ka raadso ninka ku qabana sidoo kale isaguna muxuu ahaay markuu uu keeno digsiga dabka la saarayo markuu keeno aduguna wixii lagu karin lahaa inaad keento soo saasma markuu saxankii lagu ridi lahaa keeno malqacadihii lagu cuni lahaa qaadadii aduguna waa inaad keento sooma waa laga faa'iideystay waxa loola dhaqmay sidii xayawaan aan karaamo lahayn oo kale inay meesha ka hesho banaanka ka hesho yeeyidu iyo waraabuhu ka helo oo sidii la doono lagu sameeyo oo maryaha laga dhigo karaamada laga dhigo oo sharikaadka iyo ganacsiga lagu xayeysiisto halkaas la gaarsiin markaas waxa looga dhigay in la sharfay waxa xusid mudan oo kaga bixin insha Allah ta'ala waqtiga dhamaaday qodobo dhowr ah jira oo shariicadu ku kala duuday rag iyo dumarka oo inta badan gaaladu markay dumarka diinta ku dirayaan ay inta badan isdul taagaan qodobadaasina kala duwidda la kala duway labadooda kala duwan Allah tabaaraka wa ta'ala soo quraanka kuma sheegin walaysa dhakaru kal untha isku mid ma labka iyo dhadigu
dhanka yani abuurka isaga mid maaha waana wax muuqda sooma waa wax muuqda yani waxa weeyaan gabadhii markay dhalato jidhkeeda iyo qaabku u samaysan yahay iyo xooggiisa iyo qaabku u yaalla iyo isbedelka jidhka ku imaanaya iyo korideeda iyo way ka bedelan tahay ninka soo saas ma wax gaala wax ka qaban kartana maaha allihii abuuray baa ugu talagalay dabeecadda ilaahay ku abuuray iyo takwiinka qaabkay u samaysan tahay iyo qaabka raggu u samaysan yihiin baa kala bedelan mid walba ahkaam munaasib ku oo khaas ku ah jirta marka waa abuurkiisa iyo qaabku u samaysan yahay dabeecadiisa wax badan ku salaysan laakiin dad badan aan fahmayn waxa kamid ah midalan muxuu ahaayay nabinimada iyo risaalada ragga lagu khaas yeelay xikmad baa ku jirta mase aha yasidma ragga dumarka la yasay jihaadka farad yeelidiisa ragga lagu khaas yeelay dumarka waajib ka dhacay waa miyaa la yasay maya qawaamada iyo guriga taladiisa ninka loo dhiibay waana daruuro laga maarmaana xikmad cad bayna leedahay macnaheeduna ma aha in haweentii gurigana la yasay maaha markhaati furkeeda masaa-isha qaarkood ama arrimaha qaarkood waxaa laga dhigay ninka niski xikmad bayna leedahay daahiro la garanayo dhaxalkeeda inta badan waxaa laga dhigay mid ka yar dhaxalka ninka xikmad bay leedahay la yaqaano xikmad iska cad bay leedahay markii loo fiirsado la darso ninka iyo haweenta wax loo qaybiyey haweenta kasad badan xaqiiqada marka la yidhaahdo laakiin wayna fahmayn waan la fahmayn مثال يرى أن نسيه مثلا ولا وقت ولا ماذا وقت محور عن مثال أن نسيه مثلا ويل يو جواد بأبوه تكدنت هو قد أنت يكون يشم بقول أو يورو ويل كي وحو قادنا يا ما كم بو قادنا يا جواد دينا شم بقول بقادت طيب gabadhii 500 markay qaadatay waa la soo doonay waa la guursaday 500 waxa loogu darayaa meher soo saasma gurigay degi lahaydna waa loo diyaarinayaa 500 iyo meherkeediina account-kay dhiganaysa sooma nolosheedii oo dhanna ninkanay saaran tahay ninkii kunka qaatay aanu nimaadno يا ورنينكي كونك قاتي reer buu yeeshay maxaa ka dambeeyay kunkiiba meher baa looga qaatay maxaa u laaban gurigii dhisidiisii mas'uuliyadii gabadha walaashii lafteeda haday banaanka ku soo dhacday isaga mas'uulka ah sooma keeba sad burin la siiyay marka masaayishu kulli sidaas waa kulli masaayishu waa noocaas laakiin macnaheedu waxa weeye gaala buunbuunisay si xun u dhigtay annagana ma na fahmin khasaa'istaas marka jirto waxa kamid ah haweenta diyadeedo kale magteeda ayadana waan faahfaahin lahaa waqti yelay waxa kamid ah midalan furitaanka oo rag gacantooda ku jira xikmad bay leedahay waxa kamid ah maamulka sare ee muslimiinta jagada ugu sareysa in rag lagu khaas yeelay iyadana xikmad bay leedahay waxa kamid ah midalan waajibaadka qaar kood oo dumarka laga riday sida jumcada iyo jamaacadka iyo soonka qaar mararka qaar kood iyo salaada iyo yaani wax weey dabeecadeeda waay waxay leedahay dabeecado ayna rag u lahayn oo keenaya in waajibaadka qaar kood laga dhaafo soo saasma marka wixii lagu kala duway oo ahkaamana xikmad baa keentay una gaal iyo gaala raac fahmi karin intii badnayna iyada iyo ninku waa isaga mid intaas waxaan u maleynayaa inay ku filan tahay cidii wax fahmi karta haweenka sidoo rabbi u karaamay islaamku u karaamay makaana u siiyay u sharfay wax loo dhiga ma jiro horaana mabda lamida ma jirin islaamka ka hor islaamka kadibna mabaadiida soo baxday mabda lamida islaamka oo dumar saa u karaamay la heli maayo laakiin gabdhaheena iyo hooyooyinkeen Allah fahansiyo ilaahay tabaaraka wa taala Allah ina garansiyo ilaahayna tabaaraka wa taala sharka shaytaanka kiisa insiga iyo jinniga ba Allah inaga qabto guriyaheena Allah inoo xifdiyo gabdhaheena Allah inoo xifdiyo
hooyooyinkeen iyo xaasaska Allah inoo xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala karamada iyo sharafkaasi Allah ku ilaaliyo barakallahu fiikum jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh